Bismillahirrahmanirrahim. Daawadayaal waa Xasan Toob oo aad maalmahan baraha bulshada ku arkayseen isagoo siyaabo kala duwan loola dhaqmay. Daawadayaal waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr arrin oo ku saabsan waxaan rabaa qaybta koowaad sababta ka dambeysay in aan YouTube-ka ka saarno muuqaalkii fartuun balbalaarka. In aan dhammaan iska cafino ama iska cafiyo aniga dadkii sida qaldan u wareejinayay sawiradeeda una isticmaalay wajigayga oo baraha bulshada u isticmaalay saacadihii la soo dhaafay. In aan cafis weydiisto qof waliba oo laga yaabo in uu xumaan iga aaminsan yahay balse anigu aan isku ogeyn xumaantaas. Saddexdaas qodob ayaan rabaa inaan caawa ka hadlo. Haddii aan ku hormaro sababta ka dambeysay in laga saaro YouTube-ka muuqaalkii balbalaarka, ma jiro cid culays ba'an nagu saartay in aan ka saarno heesta balbalaarka YouTube-ka, balse aniga iyo hogaamiyaha shirkadda Mohamed Gulfam iyo dhammaan tiimka Durdur Media ayaa go'aan si wada jir ah ugu gaaray maadaama la gali rabo bisha barkeysan ee Ramadaan in iyadoo tabasho shirkadda loo haysto in Ramadaanka la gaaro. Sidaas darteed muuqaalkii YouTube-ka ayaan ka saarnay. Waa qaybta koowaad. Qaybta labaad in aan dhammaan iska cafiyo dadkii sida qaldan u wareejinayay sawiradeeda iyo muuqaaladeeda baraha bulshada isla markaana saacadihii ugu dambeeyay adeegsaday. Daawade waxaad aragtay dhowr sawir oo aniga wajigayga ah oo siyaabo kala duwan loo isticmaalay. Nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri wax ka badan 3 maalin haddii laba qof walaalo ah oo muslimiin ah ay cuqdad ka dhaxdhexayso in arintaasi aysan wanaagsaneyn. Marka maadaama bil khayreed la galayo oo bisha barakeysan Ramadaan ay fooda nagu soo hayso, waxaan dhammaan cafiyay dadkii sida qaldan u isticmaalay sawiradeeda, magacayga iyo dhammaan baraha bulshada asxaabta isticmaashay. Daawade waxaan arkayay maalinba maalinta ka dambeysa shakhsiyaad siyaabo kala duwan aniga uga hadlayay. Xasan waa nin noocaas ah. Hadda mararka qaar markii aan meelaha qaar tago dadka qaar waxay oranayeen surwaalkii hebel aad maxaa qof hebel saas u yeeshay, maxay tahay waalidan aad maalin walba ku socotaan. Waa waxa aan rabo in dhallinyaradeena iyo dhammaan shacabka Durdur Media ku xiran inaan u sheego dhammaan shakhsiyaadkii sida qaldan aniga ii aaminay inaan cafiyo. Sidoo kale waxa aan cafis weydiisanayaa waan ku soo celcelinayaa halkaas waan adkeenayaa. Waxaan cafis weydiinayaa qof waliba oo laga yaabo xumaan in uu iga aaminsan yahay balse anigu aan isku ogeyn xumaantaas. runtii waxaa laga yaabaa wax aniga aan xumaan u arkaynin in dadka qaar ay u arkeen xumaan, dadka qaar ay ka aamineen xumaan, anigana aysan dhankayga xumaan ka ahayn. maadaama shay aniga dhankayga xumaan ka ahayn uu yahay, waxaan dadka Soomaaliyeed iyo customerka ama macaamiisha ku xiran shirkaddan aan weydiisanayaa in ay cafiyaan. Ma rabo in aan iraahdo shakhsi hebel baa ka hadlay dhacda hebel. Ma rabo inaan ku fogaado ama aan hadalheynteeda ka dhigto qof ka mid ah shakhsiyaadkii falanqaynta ka bixinayay in aan wax ka sheego, maadaama iscafintu ay wanaagsan tahay oo dadku aadanahana cafintu ay ku wanaagsan tahay. In aan iraahdo walaalayaal waxaan joogno waa duni qasan oo aan natiijadeedii la qiyaasi karin.
haddii halkaas ay joogto oo adiguna aad tahay ama aad og tahay isbeddelka nolosha ee dunida, waxaad ogaanaysaa in wax waliba ay isbedeli karaan ama ay saameyn yeelan karaan. marka shakhsiyaadka qaar baa kaftan iyo si jees ah waxay u oranayaan iyagoo og siday wax u jiraan, si jees ah waxay u leeyihiin hebelow maxaa cusubis, maxay tahay sheekada, maxaa saan loo yeelay. marka maadaama bil barakaysan ay tahay, go'aanka shirkadda, hogaamiyaheeda iyo dhammaan tiimka durdur ay wada qaateen, gudoomiye Maxamed Muuse Amiin Gurfaan, aad ugu mahadsan tahay taladaadii iyo wanaagaadii iyo la jirkaagii iyo caqliyadaadii iyo daahfurnaantaadii shirkadda ay ku socoto. runtii waxaa jiray go'aano badan oo shirkadda dadku qaar ay rabeen inay qaadato si ay magac ugu sameeyaan, laakiin shirkaddu ma abuurin fursadahaas ay shakhsiyaadkaas magac ku samayn karaan, maadaama wax waliba, shay waliba, arrin waliba, sheeko waliba ay soo idlaatay. waxaan rabaa taageerayaasheenna iyo dadka kale ee aan la taageersaneenba inaan xaqiiqada u sheegno in iscafintu ay ka wanaagsan tahay wax waliba. hadal aad si adiga u fahansaneed ayaan anigu dhankayga qalad ka ahay. sidaas darteed, maadaama anigu dhankayga aysan qalad ka ahayn oo aniga qalad u aaminsaneen, inaad garwaaqsan karto ama aad fahmi karto wixii shakhsiga ka dhacay iyo shayga uu sheegay oo ah in liisa cafiyo, maadaama aan ku noolahay duni qasan oo natiijadeeda ay gawaabsi tahay oo ciidana aan ogaa karin alla mooyaane. asxaabay durdur media, ramadaanka hadduu alla yiraahdo waxay bilaabaysaa barnaamij dadka lagu afurayo, dadka tabaalaysan lagu gargaarayo, oo xoogga lagu saarayo qof waliba oo danyar ama dhibaataysan, in la dareensiiyo in warbaahintu ay u kici karto wanaagga. sidaas darteed, saaxiibadeen waxaan leeyahay dhammaantiin waa ku mahadsantihiin talooyinkii wanaagsanaa ee shirkadda aad ku biiriseen. waxaan xusayaa Cawaale iyo gabar walaasheen ah oo dibadda ku nool oo noqday dadkii ugu horreeyay ee u ballan qaaday tabarucaadda barnaamijka lagu afurinayo dadka walaalaha muslimiinta Soomaaliyeed ee shirkaddan durdur media ka baxaya. waxaad arki doontaan shirkadda oo tagi doonta goobo kala duwan oo dadka danta yar ay ku sugan yihiin. sidaas darteed, waxaa idinka codsanayaa wanaagga ayaa horseed u ah nolosha aadanaha. wanaagga ayaa mar waliba udub dhexaad u ah dhammaan nolosha aadanaha. waxaa idin leeyahay daawadayaal, mar waliba waxaan u taagannahay inaan idiin soo gudbino wax idinka idinkiisa geliya, idin raali geliya, idinka saameyn idinku reebaya. waxaad arkayseen mar waliba in shirkadda ay ka fikiraysay taageerayaasheeda in ay haysato oo mar waliba dhinacyo kala duwan ay ka siinaysay. habeen iyo maalin dadka dal iyo dibad jooga ee nagu xiran waxaan u taagannahay in aan sidaas oo kale u samayno. ma rabno, ma oranayo hebel iyo hebel, dadka qaar oo saaxiibadeen ah ama kuwa aan ahaynba oo dantu ay biday in shirkaddu arrimaheeda ay ka soo hadlaan ama ay wax ka yiraahdaan si noloshooda
shaqo guul uga gaadhaan. waxaan leeyahay iimaanka Allah idin geliyo, iimaanka Allah idin gelisho, wanaagga ayaa bulshada loo horseedaa ee wax aan wanaagsanayna looma horseedo. sharaftiina iyo karaamadiina ayaa ku lumaysaa haddii arrimahaas biyo calow raadkiisu muuqa aad ka dhigataan sheeko soconaysa. dhammaan taageerayaasha guusha durdur waa madasheen mahadsanidin.